xulka kubadda cagta ee gobolka Daadmareer ayaa ku guuleystay horyaalka kubadda cagta ee gobolada Somaliland kadib markii ay 2 gool iyo 1 kaga adkaadeen xulka kubadda cagta ee gobolka Maroodijeex ciyaarta kama dambaysta oo labada xul ay maanta isku haleeleen gegida ciyaaraha ee magaalada Hargeysa halkaasi oo goobjoog ku ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo xubno kamid ah golaha wasiirada Somaliland iyadoo ay soo buuxiyeen garoonka taageerayaasha labada gobol ee kala taageerayay labadaasi xul ee labada gobol kala matalayay Daadmareer ayaa ku horeeyay goolka waxaana barbaraha la yimid kooxda Maroodijeex balse ciyaartu ay ka dhiman tahay wax ka yar 10 daqiiqo ayay goolka badiska dhaliyeen xulka kubadda cagta ee Daadmareer waxaana uu xaqiijiyay goolka guusha ciyaaryahanka Khadir Mustafa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hadal halkaasi ka jeediyay waxa uu ku hambaliyay kooxda xulka gobolka Daadmareer ee guusha qaadatay marka hore waxaan hambalyeynaa labada kooxood ee halkan ciyaarta wanaagsan soo bandhigay ee sida fiican u ciyaaray waxaanu hambalyeynaa ciyaartooygii goolleeyay ee koobka qaaday Daadmareer waa hambalyeynaa Hargeysa waa hambalyeynaa dhammaan ciyaartooygii garoonka ka soo qayb galay kuwii bilaabay iyo ilaa maanta ciyaarayayna waa hambalyeynaa ciyaaruhu waxay leeyihiin iyo faa'iido leeyihiin waa barateen haddii nahay dhalinyarada Somaliland waxaan u hambalyeynaa dhammaan dhalinyarada Somaliland meel ay joogaanba mid ciyaarayay mid taageero ahaa mid qabanqaabiye ahaa mid habeenkii dooda iyo faallada ku dheeraanayay dhalinyarada waan ku hambalyeynaa waxaanu baranay ciyaaruhu si dadka isu dhexgeliyaan waxaanu baranay si nabadda u galiyaan waxaanu baranay si loo firfircoonaado qaadkiisa balwadaha looga barayo waxaynu bilaabaynaa oo dhawaan aynu ku xigsiinaynaa inaanu bilowno inay magaalooyinka waaweyn bilaabaan sanadka oo dhan la ciyaaro oona ciyaaruhu joogsanin baynu bilaabaynaa haddana sanadka soo socda dhalinyarada kuwa ciyaara kuwa taageera waxaa laga doonayaa inay ciyaarta si saaxiibtinimo oo cunfiga u ciyaaraan inagu Somaliland maanta ilaahay mahadi waxaanu joognaa aynu quruxda ku gaarnay waa nabad waxaanu doonaynaa inaynu noqono subadeenu nabad si aynu horumarka u gaarno ilaahay waxaanu ku rajaynayaa dhibaatooyinka ka jira jaararka iyo agaarkaba inuu iyagana naga qaboojiyo inaguna nabad iyo horumar aynu ku wada soconno dhalinyaro waa inoo balan nabad ciyaar iyo dalkeenu horumarna madaxweyne Biixi ayaa koobka guddoonsiiyay kabtanka kooxda gobolka Daadmareer ayaa la isqaniin waxaanu sidoo kale madaxweynaha Somaliland uu bixiyay jaysado kala duwan oo ay wasaaraddu ugu tala gashay ciyaaryahanadii ku guuleystay iyadoo xidigii koobkaasi ugu wanaagsanaa loo aqoonsaday kabtanka xulka Maroodijeex Cabdikariim Guji waxaa bilada goolasha ugu badan la siiyay weeraryahanka Carabo oo Daadmareer iyo weeraryahanka Bashka oo Xaysimo u ciyaara kadib markii ay min 4 gool dhaliyeen intii ay ciyaaruhu socdeen waxa sidoo kale la guddoonsiiyay tababaraha ugu wanaagsan tababaraha kooxda Daadmareer Maxamed Diridaba goolodii ugu wanaagsanaana waxa la siiyay gooladaha gobolka Sool Yusuf Lambasa kabtanka xulka Xaysimo ayaa sidoo kale loo aqoonsaday laacibkii ugu akhlaaqda wanaagsanaa intii ay ciyaaruhu socdeen والله كبدا سي عبدكريم كوتشي كفتن الفريق حلقه بالكاميرا شهر ماركتوم ويردمان شهر ماركتوم حداري شبكه سمريه شهر ماركتوم عايزتقاتهم زباسي ciyaarahani oo gobolada Somaliland oo dhan ay ku tartamayeen ayaa ahaa kuwa xiiso badan leh toddobaadii ugu dambeeyay ee ka socday magaalada Hargeysa Cabdikariim Saciid Saalax telefishinka Cable Hargeysa